shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay xaaladda galmudug ka taagan gaar ahaan dhacdooyinka maanta dhacayay ilaa shalay ilaa daraad ismariwaaga ka dhex taagan labada dhinac ee ahlu sunna iyo dowladda federaalka ah iyo colaadaha hadda ka soo cusboonaaday deegaanada qaarkood ayuu ku saabsan yahay sidaa la socotaan hadda aan hadlayno waxaa magaalada Matabaan ka socda xabad u dhaxaysa ciidanka ahlu sunna iyo ciidan ka socda dowladda federaalka ah shalay waxay qabsatay dowladda federaalka deegaano kamid ah gobolka Galgaduud gaar ahaan inta u dhaxaysa Gurceel iyo Dhuusamareeb maanta isxabadeyn aan badnayn ayaa ka dhacday magaalada Gurceel waxaa noo muuqda oo shirkan jaraa'id u qabanaynaa inay jirto saansaan colaadeed iyo durbaan colaad oo la tumayo waxaan darro ah iyadoo masiibada aragtay ka taagan tahay gobolka Hiiraan oo dowladii gurmad macnale aysan u fidinin oo san madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii midkoodna tagin abaabulkii loo baahnaa in lagu gurmado dadka reer Hiiraan in maanta laga dalbanayo ciidan inuu ka soo gurmado Hiiraan si uu u qabsado degmada Matabaan ay dowladii ka shaqeynaysaa meeshii laga rabay inay u gurmadko dadka masiibada ay ku dhacday gobolka Hiiraan oo ogtihiin waxa ka taagan bedelkeeda dowladdu waxay enerjigeedii ama awoodeedii ciidan ama dhaqaale isku geysay inay colaado ka abaabusho deegaanadaas sidaas daraadeed ayaan waxaan u jeedinaynaa in dowladda arintaas ay ka waantoobo masiibada qaran iyo badbaadinta shacabka beledweyne ama gobolka Hiiraan sidii loogu soo jeesan lahaa ay ka shaqeyso waxaan ognahay dowladda iyo ahlu sunna inay heshiis galeen waxaad ogtihiin in dowladdu ay qiratay in ayada ahlu sunna gacanteeda ugu saxiixday inay siiso xildhibaano haddana ay tiri waa ku soo xeregelinaynay oo waa sirayna ahlu sunna oo ballantii inay ka baxayso waxaan ii sheegayaa arintaas inay tahay arin aad iyo aad runtii looga naxo oo aad iyo aad u foolxun siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khiyaano maaha siyaasaddu been maaha siyaasaddu ballanka bax maaha waa hadalkii ku qodbeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah maalintuu doorashada u tartamayay hadday tahay siyaasaddu khiyaano iyo ballanka baxna waxaan rabnaa inuu maanta dadka inta soo hortaago u sheego inay siyaasaddu tahay in la isiro ballantana laga baxo ayna khiyaano tahay in ahlu sunna la siiyo anaga kuma aanan talinin 35 xildhibaan markii hore xoogaga siyaasadeed ee deegaanka ka soo jeeda ama dadka Soomaaliyeed lagalama tashanin dowladda ayaa qodbasiro heshiis kula gashay ahlu sunna ayadaa ballan qaaday inay siiso waxaan leenahay marka taariikhda Soomaaliya ee dib-u-heshiisiintana way ku jirtaa sooyaalkeeda xoog hubeysan oo siyaasadeed markii la heshiinayo in wax loo gooyo waa dabiici soo maray anigaan in la hadlayo in hortaagan 270 iyo 275 xildhibaan ARS ay leedahay aan gacanteeda ku saxeexay oo la siiyay anaga markaas baarlamaankii nusna la siiyay sida ogtiin hogaamiyaashii hubeysnaa ee kooxaha magaati ayaga siixay xildhibaanada la siiyay oo dhaqameed ma siixaynin markasta marka ma aha in la yiraahdo la isku liqdaaro oo la yiraahdo odayaashii la iska hor keeno iyo dadkii deegaanka joogay sax maaha waxaan ugu baaqaynaa ahlu sunnana sidoo kale inay si nabada ku raasato xuquuqda siyaasadeed ee ka maqan oo aan deegaanka laga abaabulin wax colaad ah iyo wax dhibaato aan laga abaabulin dowladda federaalka ana waxaan leenahay u soo jeesta ballantii aafuliseen si nabada ayaa linka rabaa deegaankaas inay galmudug ay uga hirgasho oo la dhiso galmudug loo dhan yahay galmudug nabad lagu dhisay galmudug la ismaquuninayo ama la isdilaayo ama la isdagaalayo waxay u taraysaa hadeertaan shacabka deegaankaas ku nool ee baahida u qaba dowladnimada ma jirto waxaan rabaa inaan inta kale baaq uga jeediyo saraakiisha ciidanka ee kala hogaamiya guutada 15aad qaybta 12aad qaybta 12aad guutada 15aad niisa ciidanka niisa ee dowladda federaalka ah meesha u jooga taliyaheeda ciidanka danab taliyaha ciidanka danab taliyaha ciidanka haramcad taliyaha ciidanka gorgor intaasba waxaan u sheegaynaa intaas oo guuto oo ciidana la isku geeyay Galgaduud oo la rabay saaka inay dagaal shabaab ay kula jiraan deegaano kala duwan marka qaybta 12aad iyo guutooyinkeedii ciidankii danab ciidankii haramcad ciidankii gorgor waxa meeshaas loogu aruuriyay waa in colaad iyo dagaal iyo muquunin lagu sameeyo waxaan uga digaynaa saraakiisha inta ciidan aan sheegay madaxda ka ah in bari cid la xisaabtamayo colaadii meeshaas ka dhacda iyo dambeeyay dagaalka inay ayaga yihiin laga yeeli maayo haddaan aragnay kuwa leh annaga waa nala soo amray yeyna ku tashanin sharciga haddii cadaaladda gudaha
dowladda ay gacanta ugu haysa amraysa waxaa jirta cadaalad adduun aysan ka baxsan karin waa inay xisaabta ku darsadaan waxaan ka rabnaa taliyaashaas inay amar qoraal ah iyo go-aan maxkamadeed keliya ay ku fuliyaan dagaalka ay gelayaan ama wax alaali wixii mas-uuliyada oo loo diro waa inay iyadoo qoraal haystaan madaxda amraysa oo qoraal ah waa inay ka qaataan taleefona la igu amray afkaa la iiga sheegay iyo hadhowdii in odayaal gartayda ha galaan la yidhaahdo markay cadaaladda adduunka ku qabato oo aad meelaha calaacasho waxay taraysa ma laha mar kalean ku celinayaa waxaa waaye qaybta 11aad guutada 15aad ciidanka niisa taliyaheeda ciidanka danab ciidanka haramcad ciidanka gorgor waxaan kaloo rabaa meeshan inaan dowladda turkiga ee walaalna aan uga sheegno in labada ciidan ee Turkish Som iyo gorgor ee ayada mishaarka siiso ayada ay soo tababartay ayada ay qaranka Soomaaliya soo tababartay in loo adeegsanayo maanta colaad dagaal sokeeye oo deegaanada qaarkood ka dhacayo marka waxaan ka dalbanaynaa inay mishaarka ay siinayaan ciidamo dagaal lagu gelinayo deegaano kamid ah dalka Soomaaliya inaysan sax ahayn inay arintaas dib eegis ku sameeyaan inay arintaas ka fiirsadaan haddii kale waxay noqonayaan dad qayb ka ah dagaal sokeeye oo u dhaxeeya Soomaali dhexdeed ayay noqonayaan taasna waxaan rabnaa inaan u sheegno odayaasha dhaqanka deegaanka ay hadlayaan ma aha aniga odayaasha laga daabulay muqdisho mishaariga ah ee dawladda ku jira bayroolkeeda la hadli maayo waxaan la hadlayaa odayaasha dhaqanka ee dhabta ah ama deegaanka ha ka soo jeedaan ama muqdisho ha ka tagaan waxaan leenahay kaalintiinu ma aha kaliya inaa xildhibaan xushaan kaalintiinu waa inaad ka shaqaysaan nabadda deegaanka waa inaad kala dhex gashaan kooxaha isku haya deegaanka ee ahlu sunno iyo dawladda federaalka ah waa inay kaalintiini la inku yaqaanay intaana siyaasadda la inkaga baahanin ee nabadeynta iyo nabadooneynta iyo dhaqanka iyo waanwaanta iyo dib u heshiisiinta inaad ku ekaataan ayaan kula talinaynaa oo aadan dhex boodin siyaasadda oo aadan fiirsanin kaliya kursi xildhibaan ah u qorayso iyo wixii aad maaragtay kula heshiilayd xildhibaankaas arrintu inaysan noqonin ee aad noqoto taariikhdana way diiwaan geli doontaa odaygii mas-uul noqda iyo odaygii waxgarad noqda iyo odaygii maaragtay noqda qof maaragtay qaada mas-uuliyadiisa dadkuna waa la kala yaqaanaa taariikhda ayaan lagu kala baro doonaa iyadaana qof walba mas-uuliyadeeda meel dhigi doonto waxaan gabagabadii aan rabnaa inaan mar kale ku celino shacabka deegaanka galmudugna aan ugu baaqno wiilka xabadda ka ridaya dhinaca dowladda federaalka ah ama ka difaacaya ahlu sunno dhinaceeda ka socda ama ka shacabka ay ku dhimanaya deegaanka intuba waa dad ka soo jeeda galmudug waxayna u badan tahay geeridaas inay hal guri ku badato sidaas daraadeed waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan nabadda ku cadaadiyaan labada dhinac inaan colaad korkooda laga ridin oo aanan dagaal sokeeye laga abaabulin oo ilmahooda dhinaca dawlad ka socda ama dhinaca ahlu sunno ka socda ama shacabka meesha ku dhaawacmaya dhibaatada cidda looga soo tagayo waa ayaga qof kasta isku daya ee murashax ka ah galmudug ee xukun ka raadinaya galmudug ee maanta la doonaya in xoog qaran Soomaaliyeed loogu yagleelo madax looga dhigo galmudug oo madaxweyne looga dhigo waxaad ku xisaabtantaa bari marka inta ciidan oo sheegay ay ka soo dhaaqaan meesha cidda xukuum lahayd inay tahay shacabka galmudug ee aad dagaalka iyo colaadda ka dhexriday saas daraadeed waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta ka tartamaya galmudug inay cadeeyaan mowqifkooda colaadda sokeeya ku aadan si aan u ogaano kuwooda xalaasha ah ee galmudug ayagoo madax ah oo maaragtay si nadiif ah inay galmudug ku xukuman rabo iyo kuwa raba galmudug inay dhiig sokeeye ay ku xukumaan inay kala cadaadaan waan u baahannahay oo mowqifyadooda aan kala aragno gabagabadii aad iyo aad ayaan shacabka Soomaaliyeed mar kale shacabka galmudug ula dardaarmayaa waxaan kale ku celinayaa in la taageero walaalaheen Hiiraan ee gobolka Beledweyne ee biibaxada ay ka jirto aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay gurmadka ka socda galmudug ee loo fidinayo Hiiraan iyo dadka barakacayaasha ah mar kale ayaan ku celinayaa gurmadkaas laaba walaalihiin kaalmeeya colaadan ka hortaga dawladdu haday wax magarad noqotay iyadoo masiibo lagu jiro colaad abaabulayso waa wax magarad ee gacanta qabta idig dadkaas malaalihiin aan u gargaar waa maasantii wasalaam alaykum